saakay aroortii abbaaro 1 saac iyo 50 daqiiqo waxaa shaqaaqo israasaasayna ka dhacday isgooska Ex Control dhinaca Dayniile israasaasayntaas oo ay dhex martay maleeshiyaad qowleysata ah oo ku dhaqnaa area deegaankaas kuwaas oo u soo shaqo tagay inay dhacaan hantida iyo maalka ummadda Soomaaliyeed ee area-daas ku ganacsata markii ay dhici wixii bilaadoodii ka tafatay oo ayaga gudahooda isku bilaaway israasaasayntii halkaas oo ay ku dhinteen dad rayid ah oo tiradooda gaaraysa 4 qofood iyo tiro intaas leeg oo dhaawac ah ilaa 3 qofood oo dhaawac ah ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ka duulaya arkaanta amniga oo asagu uu yahay udub dhaxaadkeedii ayaa waxa goobtii tagay soona qiimeeyay ayagoo ku fikiray xaaladda adag ee lagu jira iyo saxmadda area inay saamaxeen xilligaas howlgal laga sameeyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay qorsheeyeen operation lagu soo qabqabanayo maleeshiyaadkaas ciidanka qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir oo iskaashanaya xooraan iyo dabagal dheer kadib waxay abbaara 11 galabnimo ee galabta weerareen goobtii ay ku dhuumaalaysanayeen maleeshiyaadkii dhaca iyo dilka iyo dhaawaca u geystay bulshada Soomaaliyeed waxayna gacanta ku soo dhigeen qaar ka mid ah oo kaamirooyinkiinu ay qabanayaan iyo hubkii ay siteen oo ay ku dhibaateynayeen bulshada Soomaaliyeed waxaana la horgeyn doonaa sida ku cad nidaamka u yaala xeerarka amniga ama xeerarka habka ciqaabta Soomaaliyeed cadaaladda waxayna dheefi doonaan wixii ay dhaxleen maadaama ay dhibaateeyeen bulshada Soomaaliyeed ee ku sugnayd isgooska Ex Control iyo area-diisa ayadoo ay ku dhimatay maamo waayeel ah xabada ayagu isdhaafsanayeen mana aqbali doono haddaan ay booliiska Soomaaliyeed mana yeeli doono shakhsi dambe Thank you.